بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب بيال إذا لهانتين بسودو هذا هل كان واحد يكسو قد بدونا هدو الله ود الله رالك هذا حسن الشيخ محمود نيك اللي يراهدو موقف كيسي شلي يمركي وكرسي كم غنا سيدي وقبيال دو كركرنيه يدغ هذا الكيسي هبين هوري مركي وكان ليه حسك اللي حيلا باتكا تشون وأمانتي قبل ذو وقوي حرية أي كقاتين استعمار كإنجليزكا هذا الوجودي أو هذا أو يا طلعي يريه بري ضد أركيها ضد هيادات أركتد وافشل من واسان إسكت شوشية طلعي يا ريه بري وحو كل هذا يعد كلام هاي إنه كان رئيس السير ولا رهن البانته قريب استاجا كهلا ولا له هذا هرتي أي كهل دوران كوا دارود حلك كستوي قرب وبعضان أيام مركزي وأرنتاسي دردار ورنتا أو دارنا حسن الشيخ dad wada dhashay oo sax ah oo nasab ah oo laga gardaran yahay ayuu rabaa inay isku hiilin taa beddelkeed wuxuu rabaa barnaamij urur Soomaali la dhaho inuu isagoo kicinaya barnaamijka oo jugeynaya inuu markaasi ku tacadiyo ama uu dagaal la galo hayb la yiraahdo ama qabiil la yiraahdo daaro oo markaasi la galo dagaal ciidiya ku dagaalana waliba oo jiritaankooda iyo noloshooda ka xun yahay waa Soomaaliya inta uma dhaafayo لكن waxaan idin soo deenayaa halkan idin ka soo deenayaa muuqaal xasankii shalay shirka mudulood abaabulayay markuu kursiga rabay inuu ku fariisto qaabku ka foolxun yahay u raadinayay xasankii badbaado qaran waxa la sameeyay xasankii farxaan oo dhiiqa lagu galay ka joog waradawaayo iska jir lahaa xasankii ciidamada horkacayay ee maleeshiyaadka ahaa waxa weeyaan markii dambe ciyaal weerarada xamar ku noqday dhibaatada ka sameeyay حسنكي waxa weeyaan qabiilka iyo cunfiga iyo qabyaaladda iyo cunsuriyadda madaxweynkiisa hore lagu yaqaanay tan haddana ka sii daran xilka ku magacaabaya hantida ku boobaya ku dhacaya magaalooyin iyo caasimado dawlad goboleedyo koonfur galbeed caasimadeedii Baraawe duulaanka ku qaaday dhul boobka ah xasankaas ayaa waxa uu rabaa inuu ummadda yaa reehbelay iyo tolaay iyo qabyaalad waliba dad si caadi ah oo ayaga laga gardaran yahay isugu gargaarsanayo walaalaha oo ay waajib tahay دولكي لا يقدر يهاي أولادها إنا أهيلسد أنصر أخاك ظالما أو مظلوما وهدي خلديه هنا ضدك عينا قبتي دايتاي هدي لا خلديه هنا إنا أهيلسي أيتاي حسن كاس أيان إن شاء الله مقالد داود سيتونا حسن كتعدي قوية قانا محمد سياد بروحي وكجيستي هرجيسي يبرعو لكن قوية قانا محوها وحونا أحسن يولي بإن السيوة تشعل وحلا أسعارات كل عيا وإن الجوبا مجالس إنه حاول يدك كذي شنطة بقوله كن جاري يضي هريره هذا بدك على بركعيه إلا لدع الداء صدن يماء صدن حاجة يرقوا هراديك محمد سياد برا هم كي كسر هري أنت قريه وحاول يجيبوت من الفعل لقى سقاطه إلا لدعه ضد كذي ما تدري إلا بركعيه إلا حسوقه إنه حاول يدك كذي ابنائك تبينه مدو نحوها السنة هاف كيسة حسن كواحد عادي جواركه حسن كالرابع لبعد تدي يتعدي ذي لقيت السنة دولة محمد سياد برا أيدي كي 1988 كوافقت سنة كهرة إن وأرماس كجرابه لكن هذا كوا لاس عنو لو سمينه وارك وحيريريس أو سكان عداية أو وحبا هين ديك ضد كدادنا إنه وارك ضد أي تهاي أما كوها بون إلا داديو حسن كاس وصومنا يحياه بدنا كل هلاكم اللي يكره حسن كاس منافقة أو إلهي يوم الديس إنه خيانة ربنا لكن أنا كل عين أو ضد كانوا كعقل بدني عمل أرقمية حسن كاس ayaan kilibka idinku daawadsiinayaa waxaan xusuusanahay habeen hore muuqaalkii hore idin sii daayay walaalahan waqooyi waxaan ugu hambaleynaynaa ayuu yiri nabad ay ku jiraan war maanta hadaysan wacyigu maanta xataa aan la joogno maalin kale ugu hambaley lahaa waxa ma ahaateen waxa la dhihi lahaa reesasi uu iska dhatiraya laakiin maanta oo sanad barkii 6 bilood dagaal Soomaaliya ka dhacay ay ugu dambeysay 1991 kii dagaaladii dhacay oo kale ay dhacayaan kun qof ay ilaa 6 kun oo qof ay ku qurbixeen oo waxa weeyaan ciidamada SSCna ilaa iyo kun ku dhawaad ka dhintay dhowr kun ka dhaawacantay SNMna ayadu meydku waa tirabeel uu garaad Cabdullaahi garaad muxuu ahaa Salebaan inoo sheegayo ilaa 3 kun ay ka dhimatay dhaawaca waararka yaalana ilaa 8 kun ay gaarayaan ninkii yiri waqooyi nabad bay ku jirtaa laasacanood waxa la dhacayaan iska dhatiray yiri inaan xoog ku soo xirigelino ma rabno laakiin ka hadli waayay inay laascaanood xoog inay ku sii maamulaan kuwa raba oo dhiiga ku daadinaya wareed ma rabno Soomaali weyn baa rabnaaye u hiliya Muuse Biixi Cabdi Shalay markii waxa weeyaan ay caalamku inuu wax ka qabtaan rabay ee ergeyga u magacaabay ee rabo wada hadal inuu la furo iyagu dhiiga daadinaya reer laascaanood
حسن كاس هو يدا لاسعانو joogto madaxweynaha waa laakiin iska dhatiraya xasanka kuraasti xogaaga ahaa Ismaaciil Cumar Gelay sheekadu waxa weeyaan xogaaga xildhibaanada ay direed ee isku soo daray ee kuwii Isaaq iyo kuwii Samaroon iyo kuwii Sure iyo kuwii Ciise iyo xogaaga ina Gelay intuu isku rakibay iyo kuwii uu Musadixi taleefanka kula hadlayay markii 15 May ay dhacaysay doorashada 2022 wax walba isaga indhatiray isdhahay doorashadii oo kalena qabo xildhibaanadina ku codayaan nimankan waji ka sameeyso dhiiga laascaanona ha qulqulo xasankaas aad ogsoontiin annaguna aan ogsoonahay idin taxliili doono weeyaa xasanka daawad doontaan kii shalay yaa reehelay tolaayay ariyaa mudulooda ku hayay ayaa maanta dhahaya hadaladiisa isaga ayaa marxaati soo furane daawada muuqaalka sii sheer gareeya faafiya meelo fog gaarsiiya waana mahadsantiin muuqaalkan sheer gareeya sina faafiya daawada yaa reer hebelehey nin dhahaya haddaad maqasho waa nin xikmad waaye ogaaw waa nin xikmad waaye waa nin caqli waaye waa nin waayey wax san oo dadka uu u sheego oo dadka isugu celiyo oo ku waxeeyo maanta waa isu timaadeen waa joogtiin magacaas wada tashiga aad ku joogtiin qof kasta oo adinka idinka mida waa muxtarib shirkaanuu wax ku leeyahay odayaasheenii sharafta badnaayo imaamka hogaaminaya waa noo joogaan waxaan rabnaa dadkaani inay inta tashadaan waryaa tolehey dadkaa lagu kala geeyaa ee dadka layskuma keeno dadka aan rabnahay tol waa ka badan yahay tol waa ka weyn yahay waa ka dana badan yahay waa ka masaalix weyn yahay waxa dadka dhan ka dhaxeeyahay tol ay u gaar yihiin ma jirto isdheegidaada waa arkay ama isku dhima rabnaaniya wuxuu yiri haddaan waxaan raba dhacayn in la isku dhinta xaydhibe walaalayaal marka haddii lagu nool yahay gasadeera oo guriga dadka guriga ijaarka kaaga jira hadday kaaga dheelayaan war guriga ijaarkiisa waxa soo qurxoona soo degta maantana waa jajaban iga bax wala laha geela markaan kala dhici jirnay yaa tolahay haddaan dhihi jirnay maanta geel kala ma dhaco hayno waxaan isku haysana maanta waa dawladnimo geela wixii aan isugu gurma jirnay marka geelna laga dhaco aan isugu cila dhaansan jirnay isugu yeeri jirnay maanta dawladnimada inaan dhisno isugu waryaa Soomaaliya hey ayaa maanta na anfacayee yaa reer quracehe yaa reer qansaxay nama anfacdo generaalow odawaayo wiilkeygiyo maanta maalintaad waxaas aqbali lahayd maaha Saadiq Jaan wadada uu fura ku fura wada kale oo ku furan ma jirto mid kastoo kalood qaado haddaad aamusad guriga gadaal u gasho xataa eedaysana tahay حسن وحسن كاس حسن كي شلي يا مدلوده ku hayay maanta kicinaya cajalad urur Soomaaliyeed dhaho oo beena ayaa waxa uu ku dhaga hadlayaa beelaha daarood gaar ahaan harti ama dhulbahante oo leeyahay wariyaha riyaha hebelay yaa tolaayay yaa la dhihin waa sheekadii Hargeysa laftigeedii ee ahayd waa la ku soo duulay oo hadama inaad dadkiisa xasuuqda lagu daawada rabtaa ma inaad dadkiisa intaad ku duusho aad xasuuqda rabtaa ma inaad deegaan ku dhahay war aniga ima khasbi karti ima jijuubi karti waxa doonaysid ma doonay dalkaana ma kala jarayo inta u tagtay in lagu daawada rabtaa Muuse Biixi luqad uu ku hadlayay Talxaas Sheekh waa isku mid beerka idinka ogsoonahay waxa wadaan soo socdaan idin leenahay intaad wax yeeli kartaan yeela SSC waa guuleysanayaan daarood waa guuleysanayaan harti waa guuleysanayaan Jabartiit waa guuleysanayaan Soomaalida xalaasha ay Soomaalinimada ogolna waa guuleysanaysaa daalimiinta asaasiyada ana waa guul dareysan doonaan insha Allah nacaybka ay u qabaan daarood iyo naxdinta iyo xiqdiga iyo xasidka ay u qabaana way la dhimo doonaan ilaahay idinkii si shargalay muuqaalka si faafi insha Allah ta'ala